السلام عليكم بروج بقول السلامي مركز تجوبتان سكستة لا شان قادسان وبرنامج كني هذا سوكلتولو لسعون جرتين كسو دوادن إلى سكور تي في هإلوين برنامج كنا ضلك يشير ترادن سي أصحاب فربضن وقيب قادته برنامج كعاوة سيده روك كتسني هاي عاوة وطوط ويان طوط وده حيسوي لي شيء قبلها أي دعتون تعاوة عوان كيسن ودو جيتان كسو قيب قاطع ayaan leeyahay barnaamijka caawa wuxuu ku saabsan yahay qaybta raaxada sariirta iyo sida loogu heshin kari lahayd sariirta kusoo dhawaadana leeyahay markaa Maxamuud Xasan assalaamu calaykum bilow calaykum salaam raxmatullaahi barakaatuh kusoo dhaweynaya dhaqaaja taaq calaykum salaam raxmatullaahi barakaatuh xitikab beesha وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دوادنا لي أصحاب القيمية قدرين تمضن سو دوادنا لي سكور تي في وبرنامج كينا عاوة وطوط كله با ندح مرتونتا قف كان محلوية هاي مركز سو دوادنا لي أصحابتا كقبقات برنامج كأنه بعادي معها عاوة برنامج كوحوك سابسن هاي قيبت السريرتا سررتي ولا وجه شين كري لا قد سررت كل شين كري لا سدي واحد كل وجه شين يعني واحد كوين بالراي لوجه شيء سررتي مر بعد لوجه شين واي واحد كوين لوجه شين يا بالله هاي طب كأركي أنا لايف ككوتشي حتى أنا نلوق واحد يجسوا قرقرية أما إساق راعي وأنا إذن كذا يجدا يبليس وأنا بريا برنامج بموضة وأقول شيئا بقص إساق راعي سنة ورد إسقط شو الدواء نسده حتى كباش وحولي إن بدن أيام كسوي وكم عطنت أنت تسوي شيء أنا جانا مقوم قناة بانكولاي هاي هذا وصاق لي وكقرب قادن كرسي برنامجك برنامج كنا عاود كسبنا السيد أدو شيطان بأدو أركتان حلقة السرطة أيام اللي يشين لا هاي قبلي وحليين غير كان اللي قلت ميو حلقة الراحة ماشي الله يسكتها والله يلا يسكأرك لها يا wiilashina waxay leeyahay anigu wiilashan caawa taageersana qaybta wiilashan ku jira maxaa yeelay in uu ku taaraado si la isku arko oo de waxa meeshaas ka dhacay loo wada arko baan jeclaan lahaa markaan caawa gabdhahan mucaaradanahay xaka wiilashan caawa jira anigu wa calaykum salaam raxmatullaahi barakaat baan ku leeyahay nabatoon ugaaska inaad qaali salaan gubeed salaan la mid ah barnaamijka halla شركة بولية هلا شركة سي أصحاب ربنا برنامج كوو قيب قادته الشرط يلا يكتنها اللي وين بني لا إسماعيل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دوادن لا أصحابته برنامج كيني وحي أتشعليهم بيوري واعتقادي وحي أتشعليهم بيوري ركائن لا تعوضوا ناس هذا إلا كليهودا ها إن لا استعوضه والله قلت لك لي أنا قيبت غيرك هلا طارة لبان عاو كتير رنتي وأقسلمي وليه وانك قاعدة إسماعيل إن جعور إن سلام سري وليه برخت سلام لمده ayaan hawada ku soo marinay barnaamijkii dad sariirta ku heshiin la oo doonaya inay reer dhaqdaan ama nolol ka weyn ay sii wadaan taas mid soconaysa ma aha marka caawa xamiiska inoo saaran maxay gabdhuhu u jecel yihiin xilliga raaxada ama xilliga sariirta ninba sida u yaqaano in leer kala tamiyo maxay si wiilashu u jecel yihiin in uu leer ku taaraado barnaamijkeena caawa waa taas haddii aan hoos u sii tago aan sii sharaxo nabatoon may tan oo kale xishood ma gasho waxyaabaha nolosha ka mid ah dadka aan nolosha aqoonin nolosha la baro qasab weeyaan baan leeyahay marka nolosha laga faa'iideysto inta aan aqoonin ee u socoto inay reer dhisaan ayaa loo faa'iideynayaa caawa marka laga qayb qaatay barnaamijkiini ha ilaawina sheerta leegta si asxaab rabada barnaamijkeena uga qayb qaadato maxay gabdhuhu u jecel yihiin xilliga sariirta
in laydhka la damiyo maxayse wiilashu u jecel yihiin inuu laydhku taaraado anigu waxaan taageersanahay kooxda tiraahday laydhku ha taaraado si la isku daawado anigana taasaan taageersanay runtii caawa hawshu waa xasaasi Ismaaciil Gaacoor hawshu waa xasaasi baan ku dhaaday oo sidaa sheegtay marka barnaamijkeena caawa taas ku saabsan yahay sababta aan waxaan dhihi karayaa waa jaahilnimo ka socota xagga gabdhaha Soomaaliyeed baan taaganahay ana caawa waxa ka wiilashan jira waa idin sheegay maxaa yeelay qof dhan oo kula raaxaysanayo anu marka raaxaysanayo tii xalaasheed baan ka hadlayaa tii xaaraanteed kama hadlay akhyaarta khalad hay fahmina marka qofka ama xaajigaaga uu yahay la raaxaysanayo sida xilliga sarirda waa inaad aragtaan laakiin hadii meeshiiba ever laga dhigo la baqtiyo ama laydhkii la damiyo sidee la isku arkaya weeyaan su'aasha marka anigu waxaan taageersanahay in laydhka la daaro si la isku arko hadii kale indhaha faraha laga gelinayaa marka caaw barnaamijkeena saas ku saabsan yahay waa yahay su'aal baan gabdhaha weydiinaya oo ah hadii laydhka la damiyo maxaa qarsoomaya wiilashana su'aal kale ayagana weydiinaya waxaan leeyahay hadii laydhka uu taaraado maxaa dheeriha oo aad arkaysaan marka asxaabta waxaan leeyahay asxaab far badan ba wax badan soo qoraysa dumarka waxay diidan yihiin in indhaheeda iyo indhaha ku is arkaan waqti xaadirka raaxada waa suurtagal taasina waa wax meesha ku jirta laakiin qof dhan oo kula raaxaysanaya inaad diidto in labadiina indhood ay is arkaan taasi waa yaraha agabaan leeyahay anigu oo ma wanaagsana qofka waa inaad is aragtaan qofka waa qofkii dhammaayay adduunka maxaa u qaalisan jidhka ilaahay ku siiyay iyo naftaada ugu qaalisan qofkii dhammaayay marka naftaada iyo jidhkaaga aad ku aamintay ee aad la raaxaysanaysay haddaad diidto inaad aragto xilliga hawshaas ay socoto beriga maalimada dadka kaba karanaya raaxadiisa waa iska iloobisaay laakiin xilligaas ayada hadii aad actionka iyo waxaas adiga laftirkaaga inaad dhinacaaga ka qabataa loo baahan yahay ilaa asaga kaliya hawsha lama dhalanine marka waxaan leeyahay ana caawa gabdhaha waa cambaaraynaya cambaartii u weyneed baan dusha kaga tuurayaa gabdhaha waxaan leeyahay laydhka hadda kadib waa inuu taaraadaa wiilashana waxaan kula tartaarmayaa in aysan ka yeelin in uu laydhku ay baktiyaan أنا جواب كسينا يا إسماعيل Gaacoor haye حلال مالين عد بالق صح محاكا كاني إن laydhka laga damiyo marka jawaabta raka waan ka xumahay intaas way dhaaftay arba ayay samina ba ay ma jirto caawan in saaranahay wax alla wixii gabadh meesha ku jirta wili gabadh jawaabtay ma arko wiilasha si fiican bay u jawaabayaan way is ogyihiin gabdho waxay ka kaabiyaan hadaad aragtaan waa waxa ay u badan yihiin ana caawa sirtooda idin siinaya haabay cambaarayaan haday doonaan ayaguna aniguna waan cambaaraynaya caawa su'aal ayaan qabaa ka jawaabi karay ha dawiil qofka ugu qoran tahay su'aasha qabta way ka jawaabi kartaa laakiin su'aasha aadna weydiinaysa ha ahaato su'aal barnaamijka caawa khusaysa ha ahaato anaga waxaan ka hadlaynaa waa barnaamijkan caawana hor yaala iyo su'aalahan marka su'aalahan wax kamid ah hadaa qabto waan kaaga jawaabaynaa oo dheeri ah waana fiican in wax la kala faa'iideysto marka saasan kugula talinayaa marka السلام عليكم صاحب وانكم سلامي وليه عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب سوى نكسر ما كاي قاضي مرسل إبراهيم حاج هاي صاحب ويقول كتاي صاحب بقاليا مركز أصحابته وحن إذين شيء هبين كان عاوها وحن كهل لنا وحويان sababta ay gabdhuhu xilliga sariirta intaha xitaa isku qabtaan bal sheegaya laydhkan in la damiyo tooniyan see wax ku wadaan gabdhuhu marka ma fahmnaan sheekadaas see wax ku wadaan ani waxaan taageersanay wiilasha laydhku hadda raadaba dhaheen gabadhuna ayadna waajibkeeda ha kudato waa sax
haddaan meesha gacmo wada jirba wax ku qabtaan baa la yidhaahday haddaan meesha aan laga wada shaqaynaynin maxay soo toontay gabadhu ma inay kukulanaatay guriga hooyadeed ooga soo baxday su-aashaas waa su-aasha meesha taalla marka anaa u jawaabaya maadaama aanan arag wax gabdho ahaa oo gabdhihii wada aaminsan yihiin caawa anaa u jawaabaya marka waxaan leeyahay gabadhay guriga hooyada markaa kasoo baxaysay bariis maadan soo toonanin waxaad soo toonatay in kor iyo hoos iyo si kastaba lagugu raaxeeyo baad guriga hooyada ooga soo tagtay ood xaajigaaga dee kolla saan u tiraahdo baad usoo raacday laakiin markaad xaajiga u timid inaad iskugasho ma ahan ee waa inaad shaqadii aad guriga hooyada markii aad joogta aad ooga soo raacday inaad qabato ayaa lagaaga baahan yahay marka gabdhaha taasaan caawa kula talinayaa oon farayaa fariintaasaan u tirayaa inta samayso wayba sameeyaan laakiin inayna sameynin baan ogahay cabashadoodii baa badatay asxaab fara badan baa iga soo codsatay inaan barnaamijkan asagaa soo jeediyay in badan baan ka cudur daartay laakiin way iga fursan weyday waxaa la yidhaahdaa si aad noogu tababarta dee hablihii waan fahmi laanahay barnaamij nooga samey anigana barnaamijka waan ballan qaaday xalay barnaamijka inaan soo sii daayo laakiin way suurtageli weyday inaan xalay sii daayo xalay cilad farsamo oo jirta awgeed laakiin nasiib wanaag caawa dhacday marka waxaan leeyahay wiilasha waxaan farayaa gabadh lama hadlayaani gabadh caawa lama hadlayo wiilasha waxaan leeyahay naagta idin tiraahda laydhka naga bakti naagtaasi warqadeeda oo tutuba waa inaad siisaan warqadeeda oo tutuba waa inaad siisaan naagta tii markaad soo kursanaysa kharash baa kaaga baxay bilaashka umay soo raacin guri baad u kugashay alaab badan baad u dhigtay reerkeeda waxbaad siisay aad kasoo kursatay marka qoftan dee waa adigaa saa doonto u isticmaali karaya baan kuleeyahay hadday laakiin kaa diito waa inaad irita ka bixisaa baan leeyahay wiilasha gabdhahana waxaan leeyahay sida isku dhaama haddii kaleetoole tartaarankan anigu caawi siiyey dad badan baa ku dhaqmi doono oo ay kamid yihiin dadkii iga soo codsaday barnaamijkan asaga ah inaan ka hadlo caawa marka waxaan idin leeyahay gabdhaha iska gulaya war waxaan arki jiray mas'uuliyada maaragtay unba isla laabi jirtay waa maxay gabdhaha isla laabayo xarakaad ba sameeyeen marka hore anu maalmihii hore waan la doodi jiray waan la murmi jiray waxaan dhihi jiray way bariga hore jaahiliga aad ka hadlaysaane malaha hatta kama hadlaysaan man ku ayaan ku wada dadkii hormaray ilbaxnimo ay maatay dadkii maxaan ku dhahay qaarkood reer galbeedkan bay soo galeen qaarkood wixii wadankii joogana dee waxay kala socdaan aaladaha wax lagala socdo laakiin way ka fursan weydaad calay kulli xaal waxaa la yidhaahdaa may waxaas oo dhan ayagoo og haddana waxba maysan ka baranin baa la sheegayaa marka intii ka barata way ka baratay anigu ma sheegaya hadda dad baa la ammaanay laakiin dadkaas ayaga ma sheegayo aniga ma sheegayo afkayga ma soo marin kara dadkaas ayaga laakiin waxaan leeyahay gabdhaha ha ogolaadaan in laydhka lagu arko war dadkan arkay inaan live ku jiro ay aniga isoo garaacay ama message isoo tirayo markaan barnaamijka ka baxa qof alla qofkii isoo garaacay ama message isoo diray blog baan saaraya ha ogaado waxay igu haystaan maxaad barnaamijka raaxada uga hadlaysaa raaxadu waa qayb kamid ah nolosha ha fahmaan ciyaalka xaafada intaan fahansanin aan u balbalaadinaya marka waxaan idin leeyahay bisinka caawa ma jirto wax jiro maan ka hadlayaa cidna maanan aflagaateenin cidna maanan caayin laakiin qofka bini'aadmiga meesha uu ka jilicsan yahay in loo sheegaa wanaagsan nalka in wax lagu arkaa loogu talagalay in qofkan aad ku raali geliso weeyaan intii lagu daawado weeyaan laakiin qof aan la arkin sidee baa loogu raaxaysan karaa sidee baad meelo badan oo rabti xitaa inaad gaadho ma gaadhi karist xilliga mugtiga dhibaatadeedana way fara badan tahay marka asxaabta waxaan leeyahay siiba gabdhahan caawa saaranahay gabdhaha xilliga raaxada سميرة ياسين إبراهيم راحنا لقول علي يا صاحب أدب وكو سلام يا سميرة
saaxiib igu qaale sida Samiiro kale tolo runta waa inaad ka sheegtaan Samiiro hada waa gabadh aan saaxiib nahay runta ayana ka hadashaa waan jecelahay qofka bini'aadmiga inaysan runta ka leexan caawo dhan 120 qof baa hata idaawanayso oo gabadhii koowaad ee runta ka hadasho weeyaan markii wax runaha laga hadlo gabdhuhu inay dhahaan ma subhanallah iyo bisinka iyo xilli baa loo baahan yahay in la dhaho anigu hata qofna ma nacayn qofna ma farta ku fiiqin laakiin waxaan sheego kaliya doola wax jira waana waxaad u badantiin gabdhow waxaad u badantiin iska daaya marka anidaasan idin sheegaya marka asxaabta waxaan idin ka codsanayaa siiba gabdhaha qofkan waa soo raacday kharash baa kaaga soo baxay adigana waqti baad iska soo beel dareysay marka inta aad la nooshahay adduunku waa 2 cisho waan ognahay maalin saddexaad ma jirto 2 cisho ee aad la nooshahay qofkan si farxad ku dheehanta oo reereen ku dheehan tahay ula raaxayso una hagar bax inta badan gabdhuhu waxay dhahaan six pack baan doonaynaa nin six pack la baan u baahanahay okay nin six pack la hada u baahan tahay waa si kasta lagu raaxaynaya rag Soomaali six pack inay leeyihiin baan aaminsanahay si fiican oo idin ku raaxaynaya laakiin qof asagiiba doonaya mugti qof ku jira sida lagu raaxaynaya mugti buu ku jiraa marka gabdhaha waxaan leeyahay waad hooseysan kor isku soo qaada waa leedin heelan yahay wiilasha ma habeenii maalin bay ortayaan tartin jim bay u galaan tartin maxaan ku dhahay alaabo fara badan bay cunaan sida idinka bas idin raali galiyaan oo ajaanibka uga soo hadhaan oo tii ayaga aad ugu koobnaataan idinkiina halkaas ma soo istaagtaan maalin kasta caayba la soo istaagtaan waxaad leedahay rakaanagu romantic ma aha rakaanagu six pack ma aha rakaanagu waa balwad baa dishay waxba ma qaban karayaan 2 jeer hatuu uu ku tulmaro mar saddexaad kuma noqon karayo taasi waxaan leeyahay anigu ma saaray caawi wiilasha dhaliisha ee gabdhahan saaraya waana gabdhaha kulli finta intig adigu marka koobaad hadaa doonayso in awaamirta aad codsato dhan in lagu fuliyo hadaad u baahan tahay gabadhay waa inaad adigu kalaataa in leerka lagu isticmaalo waayo hata marka suuliga galayso ama cunto karsanayso ama wax marmarsanayso waxaad jeceshahay inuu leerka ku qabto Soomaa xilliga raaxada ugu macaan tahay ee aad ku biyo baxayso maxaad u tiidaysaa marka in leerka ku qabto taas waa inaad isweydiisaan dib isku noqdo maxaan la dhahay aqliga kaasho marka aqliga waa inaad gabdhow kaashataan waxaad arkaysaa gabdhuhu haday run sheegayaan marka barigan wadanka joogayba waxaan arki jiray gabdhuhu marka wadanka yaa waxay sameyn jireen tameer 2 tameer ba isfuulaysa moogtaan inay naag tameera ba isfuulaysa marka isfuulamada haaga taasi kuleeyin balwagaas hadda shantadii faradwan kale balaadiyona maxay ka qarsan xaqna way qoslaysa haaga way kula marka hadda tiyo kale wadaan way iska doonayaan way iska rabaan laakiin meesha waxa yar jirta xoogaa yar oo yar xishooda marka alla ku sumo kale ninkiina naagtiisna dharba isku yihiin oo Ilaahay ba isku baneeyay marka qof adiga dharkaagi ama hugaagi aha ina ka xishooto ma aha asxaabta marka asaasan gabdhow idin kula tartaarmaya hadii wax fiican la idin sheego la ila tartaarmana ma aha in la idin caayo ee waa in wax laga sheegayo sida la aaligeed waxaan idin ka codsanaynaa inaad intaha kala qaataan intahana isku qoodaan bal sheeg idinkiyo meeshii madoobaysta oo yiri leedna laguma taari karayo baa hadana indhiis isku qabanaysa qofkan mamuud buu ka tul shaqaysanaya waayay so qofna walba ka tul shaqaysanaya oo inaad is weydiisan marka waxaan igula tartaarmaya asxaabta in aad ka digtoonataan wiilashan la hadlaya waliba gabdhaha doonaya in loo raaxeeyo hadana leerka tansanaya ka fogaada gabdhahaas gabdha ma aha kuwa waxaad helisaan aan inaba caadi hino idinka dhanba saas idin masaajeenaya bad helisaan waa laga tagay baan ilaahay xilligii naag ku kulan waa laga tagay marka naag hadii aad intaad keensato ay isku gasho maaragtaa fiyo anaa idin idhaaday marka taas aan nagula tartaarmaya wiilasha gabdhahan waxaan leeyahay inta wax maqlaysa waanada qaadanaysana kor isku soo qaada baan leeyahay waa dambaysan kor hal isku soo qaado markaan leeyahay oo xitaa waa la bartaatay
هذا حتى الراحة أقول كرن سوالة برتا تأتون كنتوا هرمري إنك تدوا وين أنت إن أيضا هما السنة ويان السنة ويان ولقوا بدني هاي tusaale yar baan hadda idin siinayaa hadda markaan nahay dadka ajaanibka ee wadamada aan hadda dii kasoo jeedna aan ka imaanay markaan wadamada reer galbeedka imaano nin 10 ciyaalaha ama 5 ciyaala soo dhalay iyo islaamta 10 ciyaal iyo 5 ciyaal meelaha ayadna soo dhashay markay wadanka yimaadaan waxa la leeyahay idinku waad isfuushaan oo raaxada ma taqaanaan sida loo raaxaystaa la idin barayaa markaas wallahi bilaabeyni ma sheego qof kasta oo wadamada reer galbeedka yimaaday wuu ogyahay markaas la baraatay tana dhaqan cilin baa la yiraahdaa waa la baraa markay dadka wadankan ay yimaadaan sidan ninka naagta uu isticmaalayo sida raaxada waxa lagu leeyahay idinka waan ognahay inaad maxaan ku dhahay intii sida tulaalka yarku in la eegataan waan ognahay laakiin raaxa ma taqaanaan marka sababta saa loo dhahay maxay tahay sababta saa loo dhahay waxa weeyaan jaahilnimadooda la ogyahay jaahilnimadooda ayaa la ogyahay marka xitaa annaga iska badaa dadkii kale toole ee kaarada ahaa ee ajaanibka baana bartay inaanan aqoonin raaxada aan waxba ka aqoonin hadaan nahay dadka Soomaaliyeed marka taas inkastoo annaga kaliya ay lagu koobnay oo dad badan Afrikaanina la qabaan Afrikaan oo dhan ma gaari karana idinka idin gaari karana ma garanaysaa qofka bilaadanina markuu wax samaynayo ama wax qabanayo marka koowaad gurigiisa kaga soo bilaabaa gurigiisa markuu kaga soo bilaabo ee dadkiisa u soo anfaco ayuu meelaha kalena u gudbaa marka idinka yani idinka bilaabayna marka gabdhaha waxaan leeyahay kor isku soo qaadeen maadeerayaalo meel kasta ka liidataan sida loo hadlo baa taqaanaan baa la yiraahday iyo sida canjeerada loo tubay iyo sida maxaan ku dhahay loo booban baa taqaanaan laakiin ma taqaanaan baa la yiraahdaa xagga raaxada waad ka liidataan baa la yiraahday inigoo waliba fircooni ah oo sii toltolan taas ay idin si dheer xitaa inigoo fircooni ah oo toltolan haddana intaas ku qabataan xilliga raaxada haddana laydkii bakhtiisataan subxaanallah xageed socdaan markaas marka waa in aqligu ha shaqeeyay haddii wax la idin sheego gabdho la idin macaayo ma aha in la idin kafayo laakiin waxbaa la idin sheegayaa barnaamijkan waan ogahay gabdho badan inay dhibsanayaan ay ka xumaanayaan in badan baan runtii barnaamijkan ka warwareegay dad fara badan baa iga soo codsaday oo u badan wiilal aduu way iga fursan weyday in aan ka hadlo calay kulli xaal xalay baan u ballan qaaday waxaan ka warwareegaba xalayna way dhici weyday cilad farsamo oo jirtay caaway dhacday caawana waan idin soo gudbiyay waan idin soo gaarsiiyay waan filayaa in badan oo idinka mid ahana in ay ku cimri qaadan doonaan kuna dhaqmi doonaan waxa aan idin leeyahay runtii xilliga sariirta waxa la dhahaa waxyaabo badan baa la dareemaa xitaa waxa la yiraahday tusaalahan gabadha xilliga ayada ah markii la masaajeynayo ma garanaysaa haddii lagu yiraahdo aabaha waa inaad bari soo disha haye baby ayadaas ay kuraysaa been idiima sheegayo ninkana waa saas oo kale doon haddii ku tiraahdo may maqlaysaa reerkiina dhan waa inaad soo wada kooracda haye baybidaas ku kurayaa taasi waa wax jira oo xaqiiqa ah oo la isla arkay beenna ma aha Soomaalidu sideedaba runtii ma ogolo way ka warwareegaan oo ogahay beentay aad u jecel yihiin aniguna wax run ah baan idin sheegayaa barnaamijkayga aan soo diyaariyo ee Score TV ka baxa kuma jiro hal eray oo been aha waa wada run wax aan ka hadlo markaan qisooyinka idin gudbanayo waa qiso dhabaha oo dhacday aan u taagnaa ana aan maqlay baan idin soo gudbiyaa tanadee ilmaha oo yar baaba garanayaba iska badaa aniga iyo inta iga sii waaweyn ilmaha hadda dhashay ayaa garanaya been idiima sheegaye inuu ilmaha yar uu garanayo waxaa daliil ahaa maalin dhaweydoole ayaa waxaa dhacday caruur yar oo 3 sano jirta ayaa meel yar oo ciyaalka lagu xanaaneeyo bay joogeen say ciyaarayeen unba isku kicsidee waxay arkeen hooyadoodii aabahooda isdhuuqayeen bay ciyaalku arkaan ma ogtahay bas iniguna ma samaysaan unba san ayagoo iskuulka yaraa tax kala dhoo jooga unba isdhuuqayn ciyaalka yaraa bas hooyadood baa lala hadlay waxa lagu dhahay tana dekraats baa lagu dhahay ciyaalkiina maanta nolosha wax ka arkeen waa 3 jir ah sanad afraad ma jiro
innagoo maxaan ku dhahaayay 20 sano iyo ka weynba ayaynu markaynu waxaan iskaga sheekeynay isdhaana dee halkaas waynu kaligidanay aan iska yar saxno ba waxa la leeyahay yahu hata mid aan weligiiba aan foota dhulka dhigin ba wuxuu ku leeyahay yahu bismillaahir rahmaanir rahiim hata marka kala ma dhahaya mid kala talahay ka moodinay taacad ka tahay afkaas iyo hal lagu maqlo ka tahay ma ahana runka ma aha marka asxaabtii iga socodsatay barnaamijkan in aan ka hadlo waan filayaa inay caawa khadka ku jiraan ay taawanayaan si live ah barnaamijkiina waan ka hadlay baan leeyahay qofkii qiso dhabaha haya ama wax run aha oo dhacayna wax been ah ma aqbalo wax run ah qofkii hayana ha isu gudbiyo waan sii taynaya anu waxba haba yaraatee wax aan ka naxo oo ilaahay uuntay ma jirto wax kasta waan sii daayaa laakiin waxa aan sii taynayo waa inuu wax run ah noqdaa qofka intaana meesha la soo fadhiisan ka hor waxa waan soo check-gareeyaa waan soo eegaa waxa ma runta mise waa been ilaa aan taba kala ma ahan oo soo saxa ma ahan ma soo geliyo meediyaha marka waxaan idin sheegayaa asxaabtayda caawa gabdhaha garbaashaya caawa habeenkii gabdhaha la garbaashayay gabdhaha waxaan leeyahay marka kula tartaarmaya ina xilliga sariirta intaha yeysan isku qabanin intaha ha kala qaadaan laydka iyana codsan in la demiyo laydku ha iska taaraado mid kale toole ha ku kala naanina shaqay ilaahay kacnaa fiidisi jirka fiidisi idinkii wax dareemaya ayaad maxaan ku dhahay isreereebisan xishoodka saafara badan ma wanaagsano ma adeerayaalo gabdhahan la hadlayaa marka saasaan igula talinaya wiilashana waxaan leeyahay gabdhaha si fiican waynaad u raaxaysan si aysan ajaanibka u doonanin six packan aad raadinaysaan iska daaya birihii baad ku dhimateena qaarkiina DPJ qaadeena ilma adeerayaalo birahan aad ku waalteen iska kala daaya wallahi waxaan arkay mataqaanaa dadku dhaaya maalintii 2 jeer baanu gym aadnaa subhanallah oo maalintii 2 jeer marka aad mid kasta uu ku leeyahay 2 saac baan ku jira bal maalintii markaan 4 saac gym aan ku jiro aan waxaan ku dhahay ama iskuul aado ama aan soo shaqeeyo 4 saacna gym ku jiro ka hormeena sani marka waxaasna waxa ku kalifay hablaha Soomaaliyeed baa ku kalifay inay wiilasheeni say inay bira bila xamaaliha ay qaadaan oo ay diibsha ku dhacdo oo ay 4 saac bir uun qaadaan aan wax ka soo kaliyo oo ilaahay uuntay aan jirin marka waxaan ula talinaa asxaabtayda gabdhaha tartaaranka waa inaad qaadataan wiilasha waxaan ka codsanayaa maxkamadda hadda meeshan ka furatay maxkamadaas nati waa aniga cid kale ma aha gabadhii intii sariir la tagaa indhaha isku qabataa ama leedka diitaa in lagu taaro la iisoo gudbiyo ayada iyo magaceeda oo saddexan weliba si halkan looga sii daayo oo loogu sheego dadka markaas gabadha ma kuma dhiiranayso in ay waxa samayso marka gabdhaha waxaan leeyahay caadi iska dhiga wiilashana waxaan leeyahay gabdhahana waa dheeman gabdhaha ugu quruxda badan waa iyaga marka runta laga hadlo midabka maarinka la yiraahdo ee waliba dhalaalka xigana way leeyihiin inkastoo mid isku yar tarta ay jirto laakiin haddana qaar waxaa jira midabkii caadiga wata marka wax lagu toorsan karay inay ma jiraan oo wal isku baahan yahay laakiin xoogaa yar waxa yar jirta aamin bax ah gabdhiina waxay ku leeyihiin inta ayagu mid kale waxa maqlay aan ka dhax kale waxa maqlay gabdhaha Soomaalida markay ajaanibka kursadaan sida ay Soomaalida ugu xishoodaan oo xishoodaan baa yiraahday taasna waa maqlay tiriin uma hayo laakiin waa maqlay markii gabdhaha Soomaalida ay ajaanibka kursadaan kama xishoodaan waayo waxay ku leeyihiin wajh man kale ma tan man kale miyuu garanaya marka taasna waa maqlay marka gabdhaha waxaan aan kula talinayaa ti ajaanibka si fiican baa u raaxaysan ti kuwana aan uga baahanay ti wiilashana oo raaxaya baan leeyahay waxa kaloo nagula tartaarmaya asxaabtayda ti hadii aad anigu ti maxal dhahay waxba kama waabto wax kasto jira buuga markaysan baan wax kasto ku soo diyaariyaa
oo qisada markay soo dhacdo aan ku soo si aan intee u kala iloobin oo aan fariinta la soo faray aan u gudbiyo marka caawa barnaamijkeena wuxuu ku saabsanaa dee sariirta ayuu ku saabsanaa xilliga sariirta dee gabdhaha Soomaalida maxay u jecel yihiin in leerka la baqtiyo aniga runtii horta leerka hadii la baqtiyo indhaha faraha laga gelin karayaa meelaan wixii lagu wadin baad la doono dee lagu kufeen karayaa cilado badan bay leedahay oo farsamo marka tii hablaha caadaha iska dhigaan maalinta wiilba ay sheekeynay runtii been idima sheegayo waa wax jira waa sheeko dhab aha waxa sheekadaas liiga sheekeeyay muddo hadda aan malaynayo 4 sano inay ka soo wareegtay wuxuu dhahay gabadh baan ayaanu tii maxaa dhahay wada raaxaysanay xilliga sariirta marka sariirta meena gaari marka hore fadhigan fadhino oo rabnay inaan ku baashaa lagu yiraahdo fadhigi aan fadhinay ayay gabadhu waxay tiraahday buu dhahay leerka iga baqtiyay gabadhi waan xurmeeyay waan kacay leerkii baa baqtiyay leerkii mar alla markii aan baqtiyay baan soo noqoshin aan gabadhi rabay inaan ku soo noqdo ayaa wuxuu ku leeyahay ila waan socdo moogta meeshii madow bay noqoto xal ma arkay ayaan gabadhi ilkahayga baan waxaan ka kaliyo madaxa bal u fiirso dhibkaas yaa kaystay waa ninkii dhanay raaxada socdiya socodkii aan gabadhi ku soo socday leerka soo baqtay ugu tiri moogta leerkii noqoshadii aan ka soo noqdin ayada ku soo socday ayaan maxaan ku dhahay ilkaha ku dhuftay madaxeedii daynantiyo madaxeeda ilkaha la kale baa iga tagtay buu ku leeyahay bal dhibka eeg hata maxaa baas oo la qarinayaa marka maxaa baas oo la qarinayaa marka waxaan sheegayaa dhaawacaas hata gabadhaas dhaawac bay isku geysatay cidna waxa ma yeelin ayada un baa dhaawac isku geysatay marka gabdho idinkiina dhaawac baad ka faa'iideen mid kale qofka markaad arkayso dareenkiisa waa u baahi tiri karaysaa dareenkiisa waa u baahi tiri karaysaa waayo qofka marka wax u sii baahan yahay waad arkaysaa moogta waa dareemaysaa laakiin qofka hadaadan mar arkayn adiga marka inta yareeda ku gubaysay ka imaato ee qashinka ahayd waa iskaga dulkacaysaa moogtahay ayadna hata waxa laga yaabaa inay weli sakaraad tahay markii la is arkayo waxyaabo badan baa lagu qaban karayaa gabadhay laakiin marka aan lagu arkaynin waxyaabo badan ayaa qabyo ka noqonaya marka waa inaad taas horta u fahantaan anigu inaad idin caayad mooysan laakiin idan ma caayo ee waxbaan idin sheegaya ma garataan marka dee waxaan dee wax qashin ah oo dadku way gubtaa run martaan way gubtaa waxaan shahwada leeyahay qofka bilaadmiga way gubtaa waa wax aad u xun laakiin qofka marka ay ka timaado wuu nafisaa run hadaa rabtaan qofka bilaadmiga wuu nafisaa xitaa waxbuu kala kartaa sida hada tusaalaan qof markuu qandhaysnaa uu madaxa in badan xanuunayay oo cunateedana kiniinkii qandhada jubinayay wuu dhiididaa soomaha shaxba dhiidid ka soo dhahaa waxaana markay kaa yimaadaan waa saas oo kaleeto marka waxaan idiin sheegayaa waxaan waa qashin weeyaan horta sidiisaba qashinkaas laakiin meesha aad ku gudinayso waa inay noqotaa meel nadiif ah maxaa laga wadaa ma taqaanaan qofkan qof علشان توني إنا اسكو باهي بيشان أو دي بودي بيا اسكو نقطان وإنو النقطة ما فهمتين مركا أنا وحان إذن كل طلينا يا سيبا هبلها كوشينا هالكن إناي لايركا أو كالادان إنا لطارو حلقا راحة سريرتا وأبادان تهي ما أهانا دي سرير كليا لغو مرة حيستو يعني سرير كليا إذن كيد ديجين meel kasta lagu raaxaysan karayaa marka raaxo noqoto oo de inta yarta ay ku gubtaba oo wax ku hesho oo ku raaxaysan karaysaa laakiin sariirta waa loo badan yahay waan iska afkeena wiilashana waxaan leeyahay gabdhuhu saad wax ugu wadaan u leeyihiin idinkuna wax kaarsiiya salka ha ka ridin ee baluu tartiibiyo gabdhaha u kaadiya ayaan idin leeyahay marka meesha hala isku turo qaar baa waxay ku leeyihiin de waxayna leeyihiin markasta waxba ma haysaan wixiinu dee waa qof cala soo bax weeyaan marka saa u wadna waa inaan salka ka tuliilina marka taasna waan ka cudur taaranaynaa oo waxaan leeyahay gabdhaha salkan yaan laga ridin ee bal kaadi badana waa loo kugulbadeeyay gabdhaha loo kaadiya baan leeyahay waayo gabdhaha waxaan leeyahay tii salka xitaa la idinka tuliiliyo idinka iskugu wacan maxaa yeelay idinka caydiin waaye idinka diin waaye maxaan ku dhahay dhaga hadal
markii qofka bini'aadmiga markii dhag hadalka ama hadalka laga badiyo wuxuu bula soo baxaa marka gabdhaha qaarkood hadday salka ka dhacaan ama wax basbaas limooda lagu shubo hadduu qaataan tii ay kalabsadaan ba laga jarayaa saasan kula talinayaa marka waxa kaloon idin sheegayaa inta jacayl in ay barato siyaabaha wax loo kala qaar badan waxa jira dadka raaxa oo maqlo oo raaxada laftirkeeda waxay tahay aan aqoonin ba inagu jira marka qaarka raaxada waxaan aqooninna waxa jirta meel lagu barto oo la isku baraba jirta meelahaas ka qayb galaan qofba qofku ka wan yahayna waxa weydiyo oo ha yiraahdo qaabka raaxada xagee loo maraa sidee baa la dhahaa raaxada way noocyo badan tahay qofba inuu ka yaqaana marka la isku birbirsado markii wax la isku dardarsado wuxuu baa ka soo baxay ma garanaysan marka waxaan idin leeyahay asxaabta waan ogahay dad badan oo hadda halkan ku jiro hadda imsaad ku jirtaan halkan 650 iyo 7 qof baa ku jirtaan qaarkiin inay raaxada dhib ku tahay oo qaarkood maqleen baa dhici karaysa qaarkoodna ay macallin ku yihiin ay ku takhasusaan qaarkoodna ay barbarad yihiin dadku waa isku dhex jirka horta marka qaarka aan aqoonin waxaan leeyahay iskuulo waxa jirta raaxada lagu barto iskuuladaas taga ka qayb kala qaarka macallinka ku ahana waxaan leeyahay qaarka jaahiliinta wax bara qaarka dhaxdhaxaadka hore u socda wad gaaraysan tanta iyo himilada aad leedihiin baan leeyahay marka waxa kaloon idin leeyahay barnaamijyo kale ayaan idin soo diyaarin doonaa asxaab fara badan baa qof kasta horta barnaamij buu dhahayaa dhibka jira wuxuu yahay qof kasta luuqa loogu soo tiriyay moogta barnaamijyada waxay ku leeyihiin barnaamijka noocaas inaad ka hadashaan u baahanahay kuma dhahayaan waqti ma haysaa qofku dhahay ma jiraan barnaamijkiisa qof hadaa dib intaad u yar dhigta astiraada bal kan ka horreysii wuxuu ku leeyahay maxaa barnaamijka YouTube ugu dhigtay taariikhda marka xilliga ahayd baa ani barnaamijka ku soo diray marka bini'aadmi lama wada qancin karay laakiin waa isku dayaa in badan oo idin ka mid aha inaan idin qanciyo habeenkii xalay ahaa barnaamij kambaali soo diray laakiin habeenkii ka horreeyay oo aanan asna soo gelin barnaamij kale la tiray maanan soo diyaarinin insha Allah qofkaasna waa la xiriiriyaa barnaamijkiisa sababta aan u soo diin waayay ma sheegay qofkaas magaciisa marka waxaan idin leeyahay gabdhaha caawa saaran tahay diiradu wax alla wixii gabadh sheegata ee meesha ku jirta iyo inta maqana way wada khusaysaa asxaabta arka inaan leef ahay ee halkan iga soo garaacaysa isku xishooda waad arkaysaan inaan ku jiro live arkaysaan inaan barnaamijka raaxada wada markaas haddana ay soo gargaraacsan marka waxaan idin sheegayaa asxaabta waxaa jirta habeenka markaa idin soo daynaya laakiin gabdhaha qaybta raaxada ku xun waxaan leeyahay raaxadu waa waxa cunto macaan horta gabdhaha la iskuma jeclaado ana runtii idin sheegaya gabdhaha waxay maleeyaan cunto macaan in la isku jeclaado cuntada macaan walaalayaal la iskuma jeclaado kugul qurux badan iyo waxda carfsan la iskuma jeclaado marka koowaad horta raaxada waa inaad u dhameystirtaa marka raaxada u dhameystirto qofka raaxadaada uu ku qanco wallahi bariiska hadaad lugta ku walaaqday xitaa uu ku qancaya beenku ma sheegay laakiin kugasha qofka bini'aadmiga haday ku xumaato cuntada ugu macaan hadaa u kariso waxba uma tarayso hadaad unsiga ama cadarka u khatarsan aad guriga ku waxayso waxba uma tarayso waayo diilan kugashiyo maada ku qancanina laas hayaa dibishintaas cunaya ma ogtahay marka waxaan idin leeyahay gabdhow marka koowaad sariirta ayay nolosha ka bilaabataa sariirta iska soo hagaajiya sariirta marka shaxshax ka soo dhigtaan ee aad sariirta saa soo koosataan ee soo qancisaan ka bacdi cunto macaan iyo waxyaabo kale toole raadiya laakiin adiga oo kugashi bal qof intuu xalay kula seexday
aroortii soo kacay ka waran asagoo haddana dee sidiis u oomanoo dee mid kale hal qof kaliya markuu shaqada qabto iyo markii qof kale la qabanayo way kala macaan tahay sida hadda shaqada caadiga oo kale toole shaqada raaxada ka baxsan oo kale toole markii la qabanayo laba ruux markay isla qabato shaqada iyo markuu hal qof uu shaqada qabto midkeeba faa'iido badan oo la dhaqsada qofkan markuu kula shaqeynayo tan raaxadana waa saas oo kale toole qofkan aad nolosha ku midowdeen marka uu si fiican sariirta kugu qanciyo ama kula raaxaysanayo iyo markaad adigu kaligaas aad qofta rogrogayso aad bay u kala macaan tahay biyihii xitaa isku si kaagama imanayaan taasaan idin sheegaya asxaab fara badan oo qoslisan arkay laakiin ha qoslina cashir baan idin wadaa inaa qosashaan ma aha wixii xun baa lagu qoslaa wax wanaagsan baan idin wadaa marka gabdhaha kuwaashay gabdhaha waxaad arkaysaa moogta isla bal u fiirsata islaamaha la qabo markaad aragto waxay ka sheekeynayaan cunto hiblaayo shalay baan kariye taas kaliya soo qabsan moogta cunto hiblaayo shalay baan kariye maanta ma karin karayo cuntadaas wuu necab yahay waxaasay ka sheekeynaya moogta mid raaxada ka sheekeynaysa kuma jirto oo dhahaysa xalay wallahi bilaa sariirta alaqaadka waan ku ciriiriyey tudhaysa ma jirto miskiinka wallahi waan ka inkaar kurtay xala sariirta si fiican ugumaana qancin mid ku dhahaysa kuma jirto dee mid kasta waxay ka sheekeyn cunto iyo waxaan loo joogin bay ka sheekeynaysaa maxaa u diidayna raaxadii ka sheekayso qofka waxaa laga yaabaa xalay inuu sariirta dee si xun markaad qofti wax ka weydo eed wax dareen iyo waxba aad ka weydo maxaan ku dhahay dee beesho quman iyo wax wanaagsanta aad kala kulmi weydo qofti way kaa hor imanaysaa moogtahay marka xitaa waxyaabaha furiinka degdeg aha keena waxyaabahaasa ka mid aha marka asxaabta waxaan idin leeyahay waa inaad siiba hablahan la hadlayaa caawa hablahan la hadlayaa hablaha waa inay isku tayaan inay dee xaajiga u raaxayn karaan mid baan idiin sheegayaa qofka bini-aadmiga hal meel kama raaxaysto taas waa inay ogaadaan habluhu marka dee hadda idiinma tilmaami karaya laakiin dee waad aragteen dee waa qeyrkii weeyaan horta qofka bini-aadmiga inuu maseera loo baahanya maogtahay gabdhaha horta soomaalida maseer wax la yidhahdo kumaba jiro dhiigkiiba tuumba lagaga nuuga maogtahay hablaha reer galbeedka aha waad aragteen si wax yeelayaan hablaha reer galbeedka aha kor bay kaga yimaadaanoo hoos bay kaga yimaadaanoo dhinac bay kaga yimaadaanoo tani dee si kastaba dee ayay u sameeyaan ma garanaysaa laakiin hablaha soomaalida maxaa u diida inay ficil yeeshaan oy dhiig yeeshaan oy dhaacaan yeeshaan oy uus innaba ha yaraato inay inta isku yeelaan ay hablaha reer galbeedka ahaa ay la tartamaan maxaa u diida marka qofka bini-aadmi waxaa loo baahan yahay waxa wanaagsan baa qofka bini-aadmi lagaga tabataydaa laakiin waxa xun lagagama tabataydo waxyaabo badan oo hata reer galbeedka dhaqankooda aha waad kaga tabatayateen waxyaabahaas inama anfacayso tiina anfacaysana kagama tabatayanaysaan marka dee bilaa caleeg seadu wax u wataan anagu idinmaanaa fahmintee maanaa idin fahmin cudurdaarkiinii baa batay maxaan dhahaa cabashadiinii baa badatay nimankii raaxa la-aan baa ku riteen hablo waad iska soo tagtaagan tihiin uun qof dhan oo maxaan ku dhahaaye 100 halaad kaa bixiyey iyo qorigii ayaad bilaa raaxa dhigaysaa qof dhan oo 20,000 dollar kaa bixiyey baa bilaa raaxa dhigaysaa dee sare calaa nabi saas sidee wax soconaya ma aha caadi iska dhiga hablo marka qaybta raaxada kasoo biira midda kale toole gabdhaha waxaa laga yaabaa qaarkood anima wada dhahayo laakiin qaarkood waxaa laga yaabaa inay daacad ka tahay wallaahi bilaahi qaarkood waxaa laga yaabaa inay gabdhuhu daacad ka tahay oo aysan aqooninba oy moodayaan uun in loogu talagalay inanka inuu shaqeeyo oo dee naagta uu rogrogo uun in loogu talagalay baa laga yaabaa inay qaarkood u haystaan marka qaarka saa u haysto haddii la tababarto waa kuwa ugu wanaagsan idinkuna inamada waa ina isku daydaan gabadhu haddaysan waxba aqoonin in aad tababartaan adduunka ilaa waxa ugu wanaagsan qof aad tababaratay qofka haddii aad adigu aad tababarato wax ka wanaagsan ma jiraan waxay doonay ha ahaato qof haddaad tababarato wax ka wanaagsan ma jiraan marka idinkuna isku daya gabdhaha in aad tababartaan aad wax u sheegtaan hadday laakiin tababarka ay diidda qaar waxaa jira mataqaanaa dhagax ah oo geed aha ma fahanteen oo jaajuurkana ka adag oo haddaad wax kasta u sheegto aan waxbaba gelinba
كواس كله حليلة ما بتقانا كريمة كشو كريمة كما بخلو قف كاسو كله حاجات كينتي وعملا قار كاسو كله طالدي إن الله الله سرعي باستهلان لكن مركه هرتا اسكتي وقت كلي بل إنا محن كل هاي أدو بركة سقفتنا اسكتي هذي كاتيت أو نقطتك قف من كرة كبح أيتها هاسكس أتتاس بدكلة اللي هي بدل كده وحلاي سيدا مد أي شيء وصومالي وحتى قف طايت شغلة حتى أما مر ترى حديث أكو قنعة قف أودك ما أما أصور كله طلعها لمهلي بيان ويتاس قف كاس قف كراح معان أما كتش على والن أنا إن شاء الله جاي بون هدا ويدو بدل كيس على هرايا تاسنا يعني إذن موجانين نحن إذن شيء قف كاس كلية لو ما هم نرشوا حنقول بقول كونك سنة شرطة بقول عن أصلي كاري كريم بشرطة بقول أيضا كقيمة بدن بشرطة تاسنا وين أوجاتان وحنا اسكو نافي شيء اللي هذا راح هذا ما فهمتين marka waxaan idin sheegayaa asxaabtayda way garan peeniga maaha wax jira idin sheegayaa dad waxa jira hata sano kala fadhida marka ay saa ku soo akmaraan hata halkan oo kale laga yaabo qofka inuu fadhiistay jimbigan aha dhinacayga aha qofka sidoo yaqaano balaya inuu qof soo fadhiisto qofkaas waxa laga yaabaa saas uu ku yar taabto inuu maxaan ku dhahay uu tareenkaaga si fudud uu u kaco waa dadka magneedyada waxa yaabaha lagu karto ayay ka mid tahay dad qofba waxa laga yaabaa maanta oo dhahato 60 ku leeyahay inuu san tareenkaaga u kacin marka dadka bilaadanka xitaa way kala yihiin asxaabta qosolka joojiya ha qoslina wax jiraan idin sheegaya marka waxaan idin leeyahay raaxada waa waxa koobaad ee qofka qofku ka raaxa badan yahay ayuu ka nuur badan yahay oo ka bilic badan yahay oo ka qorx badan yahay taas horta ma ogtihiin been bad mooysanada وحقيقة نباها دراسات السمية باللي ogaaday qofka uu ka raaxa macaan yahay ama uu ka raaxa badsaday ama tii uu qof markaan leeyahay ka raaxa badsaday aan leeyahay qofkaas si wanaagsan loogu masaajeeyay ama loogu raaxeeyay dadka kale toolo wuu ka ifaa wuu ka wanaagsan yahay wuu ka habisan yahay niyadiisa markasta waa habi midna aan idin sheego biyaha qofka bil'aadmiga muruga ku reebaan way dhibaan qofka bilaad markii xambalaagniyo ayada ay dhiladii ku dhashaws adana block saaran wada ka tonda waan ka xumaa asxaabta qof bay soo raacay soo arkeen aan ku jiro live-ka marka waxaan idin sheegayaa asxaabtayda qofka uu ka raaxa badan yahay ama uu ka istiin badan yahay ayuu maxaan ku dhahay ka bilic badan yahay ayuu ka habisan yahay iga raal noqda asxaabta ayuu ka habi badan yahay kono loo wanaagsan yahay marka waxaan idin sheegayaa xaka raaxada waa in la ogaadaa qofka bil'aadmiga isneelo noqda asal iyo badbu noqda wuxuu si sharkaraya asxaabta ahay loobinina share tiraadaan si asxaab fara badan barnaamijka uga qayb qaadato barnaamijka waxa la yiraahdaa barnaamijka raaxada waxaana lagu garbaashayaa hablaha Soomaaliyeed bal lagu garbaashayaa waxay ka bixi waayeen sidii mas'uuliyada in isku gulan gabadh ku gulan xagee la geenayaa marka way isku gulayeen leerkii hala baqtiyay kuleeyihiin indhihi ba isku qabanayaan saddex xaalo saddex dhaliilood baa la idinku hayaa hablow caawa barnaamijkan lambar 1 waxa sameeysan waa isku gashan sida mas'uuliyada ma ayaa isku gashan lambar 2 waxa sameeysan lambar 2 waxa sameeysan indhaha isku qabataan xilliga raaxada lambar 3 leerka halna loo baqtiyaa tiraahdeen waa saddex dhaliilood oo aad u waaweyn qofka bil'aadmiga hal dhaliil oo ugu tul qaadan karaysa labaad hadduu ku tarsado way yar adag tahay laakiin anu hal dhaliil un qof ku afina laakiin laba ma ku afin laakiin waa dulqaad badan baan leeyahay inamada Soomaaliyeed saddexdaas dhaliilood anigu maanan aqoonin laakiin waa la ii soo gudbiyay anigana sidii la iigu soo gudbiyo baan idinkana idin soo gaarsiiyay marka hablo waa la idin ka cabtay waana laga cabaaday cabashadiina way badatay marka hablaha waxaan leeyahay kor isku soo qaada in maadeereeyaalow deewaad hooseysaana kor inta isku soo qaataan
saas wax u masaajeeyo oo yaa inta doonaysa si gaara in loo tababarana dee waa diyaar ma garanaysaa casharada waa laydin bixinayaa marka waxaan idin leeyahay koorsooyin bay u kala qaybsan yihiin cashiraantu koorsooyin bilooyin la qaadanayo iyo koorsooyin kaleeta kala jiri doona marka hablaha caawan garbaashay intaas hataan kaga hadho wixii hablaha xagga inamada usoo noqonaya inamada waxaan leeyahay hablaha si fiican waa inaa ugu raaxaysan idinkuna oo idinka soo cabanin idinka laftirkiina cabashadiina way badatay marka hablaha salkana ha ka duleelinina laakiin si wanaagsan hablaha waadi waa habla Soomaaliyeed si fiican ugu raaxeeya oo ayna weligeed ku iloobin mid kale dad waxaan maqlayay ama dhahaya meel khaldan raaxada ka fahmay ama meel khaldan raaxada ay ka gashay marka dadkaasna waxaan leeyahay raaxada saamoodeen ma aha marka barnaamijka lan ku garbaashi doona dadkaas iyaga aha qaarka ifahmayana aan ogahay qaar badan oo ifahmayna ku jiraana hadii aad wax igu kordhinaysaan luuqa baa iga soo tiri karaysaan si dad barnaamijkaas intaan isku geeyo taatana aan bulshada u soo bandhigo dad noocaasna inay bulshada laga dhex heli karayo dee waa inaan tusnaa bulshada wax kasta laga helayaa bulsho markii meel iskugu timaado qayb kasta ayaa ku jirta marka barnaamijkeena soo isku gabagaba yahay waxaan idin kula tartaarmayaa oo iga waana aha la idinku nacay hablaha Soomaaliyeed baa lagu nacay deegaankiin haduu idin nacana deewad meel idin geyn ma jirto in xashiishka la idinku taraano ma sheegin laakiin meel la idin geynayo ma jirto marka si aan la idin nicin oo deegaankiin u idin jeclaado hablow saddexdan xaalo iska daaya saddexdan xaalo hadda iska deysaan waan hubaa in aad deewaaba diin dheemanti Afrika double dheeman in aad noqonaysaan waa hubaa hadda saddexdan xaalo aad iska deysaan hatta idinkoo saddexdaas xaalo leh ayaa hadana la idin jecel yahay oo la idin rabaa waxa sanadii waa dheemanta aad diin weeyaan hadii aad saddexdaas iska deysaanna waa hubaa in la idin si jeclaan doono saddexdaas asxaab fara badan oo hadda barnaamijka ku soo biiraysan u jeedaa saddexdaas haddaan marka la idinku celiyo waxa weeyaan hablaha isku gulaya sida mas'uuliyada waa isku lalaamada ama sida maska qofba sidoo u yaqaano hablaha saas fi isku lalaameen baridaad xilka sarirta hablaha taas iska daayaan lambar 2 hablaha ha iska daayaan indhaha ay isku qabanayaan qofka kula raaxaysanayo labadiina indhood waa inay is saaraadaan tasaxadna waxa weeyaan laydhka ha iska shidnaadeen hala baqtiya hadhiin hablaha la hadaya saddexdaas wiilasha waxaan leeyahay hablaha idinkuna si wanaagsan ugu raaxeeya si aysan dee ayaga laftirkooda idinka caajisin hablahana mid kale doole xilliga raaxada un mooyeene xilliyada kale doole la sheekaysta sida indhihiina iskugu bataan oo aynan u kala xishoonin xilliga aad sarirta tagaysaan waayo inta ka horeysa hadii meel marka fadhiga kale doole guriga la joogo kale doole qofkiis eegtaan si fiican u wada sheekaystaan xilliga sarirtan waxaan aaminsanahay inaynan kala xishooneynin laakiin hadii aad inta kala la is arkaynin oo la istaamar marayo oo halka ka soo qaad waxa ku yahay halka la isleeyahay xilliga sarirta una la isku soo korfoorsanayo daalaftirkeeda qajilaad aad u far badan bay keeni karaysaa marka waxyaaba qajilaadka keenayna taas aan u maleynay marka idinka laftirkiina ragow waa inaad sameysaan inaad hablaha markasta xilliga sarirtan oo aynanti hoosta ka gelina markasta aad u dhawaadaan inaan ka ag fogaanin aroortii markaad sii baxaysaana adoon dheeg u saarin in aadan iska bixin markaad soo gashan adoon dheeg u saarin in aadan ka bixin ayaa la idinka rabaa raka waxa kaloo aan sii raacinayaa hablaha si fiican in ay raka u qanciyaan salkana hay ka ridina markaan ilaa si fiican oo u qancisaan qaar waxa jira soo isticmaala dawooyin kobciyo bahalka raka ayaa jira hablaha laftirkooda ha ka tigtoonaadaan bahalka raka dawooyin kobciyo
oo barari ayaa jira markay gabadhu ku hadal badato ayay u isticmaalaan inta badan qaarkoodna markay gabadhu ku cusub tahay ayay u isticmaalaan si ay ugu qaadato inuu bahalkiisii aabiyo hooyadii ku dhaleen asagoo iskaga dhigaya marka waxaan dhihi lahaa dawooyinkaasna inaad gabdhaha Soomaaliyeed aad u isticmaashaan ma wanaagsano hablahana waan uga tigayaa ha iska ogaadaan bahalkiisa weynaaday ama bararay haday arkaan ha ka fogaadaan wuxuu soo isticmaalay waxyaabo tibciyo waayo kaasoo kale markuu kaligiya una waxa ku jir awood ma laha qofka isku kalsoon ma isticmaalo laakiin qaarka aan isku kalsoonayn ayaa isticmaala waxyaabahaas ayaga ah marka ka fogaada baan leeyahay gabadhii aragta nin astaanta noocaas leh ha ka cararto nimankana waxaan leeyahay gabdhaha ha u isticmaalin waxyaabaha bahalka barariya ama dawooyinkan aad isticmaalaysaan aa u isticmaalina baan leeyahay marka hablo idinkuna waan idin sheegay qof kasta wuxuu ku khaldan yahay inaad u sheegtaa wanaagsan marka habliina waan u tigay wiilashana waan u tigay marka qof kasta oo bili aadmi ahna wax buu ku xun yahay wax buu ku wanaagsan yahay taas qof kasta ha ogaado marka ani wallahi waan ka soo horjeedaa hadda ka hor waxa dhacday magaalada Addis Ababa la dhaho ba hadda ka hor waxa ka dhacday ninba wuxuu ka tagay wadankan Sweden buu ka tagay magaalada Addis Ababa la dhaho ayuu tagay Addis Ababa markuu tagay ayuu kabadh buul ayaa reerkooda u guuriyeen marka wiilka aabihi gabadha aabeed ba iskarinay wiilku dadkan Yurub intuu ku baaba'ay mukhaadaraadka aad u isticmaalo ahaa marka wuxuu isdhay gabadh Islaameed oo toltolan baad u tagaysaa awoodna ma haysid aad gabadhi ku fikri jibiso marka waa inaad dawooyin aad isticmaashaa oo dhaay bahalka balaadhiya gabadhii uu isticmaalay marka bahalka raka dawadii balaadhinaysa buu isticmaalay kadib markuu u isticmaalay ayuu gabadhii u tagay gabadh yar oo weligeed baan waxaas arag bay ahayd gabadhi waxay ku leedahay markii laba habeen la seexatay buute wax gaara aad moodo inantiisa u dhaxkaliyo moogtahay inantiima way ka soo carartay reerkoodiiba dib ugu soo noqotay waa maxay baa lagu yidhaahdaa waa la wareystay anuu ninkan mar raba sabab anuu ninkan inuu bahal igeliyey inuu jilib igeliyey bay tiraahday ma kala garanayo laakiin waxay idu weydiisaan bay tiraahday wax weyn dib buu idhax dhigay bay ku tiraahday reerkii bas kadib adigu waa la sii tabakala arrinta ayada ahayd waxaa la soo ogaaday inuu isticmaalay ninkan baashan kuska raka bararsa inuu soo isticmaalay baa la ogaaday ninkii halkiiba xaal xumeyn lagaga qaaday sida dhaqanka Soomaalida ahba oo gabadha magteedii baa laga qaaday bay ahayd halkiiba lagaga furay halkiibana sheekadaas ku dhamaatay marka waxyaabo dhabaha oo dhaca qisadaas ayada qofka ku dhacday anigu toos baan u garanaya laakiin ana barnaamijkayga waxa kama nooca inaan ku dhaahdo qofka magaaladaas ama magacaas la dhahaa barnaamijkayga waa kama nooc marka waa waxyaabo dhabaha oo dhacay waxaan aan idin sheegayo qisadaasna waan u taagnaayadna marka habluhuna ha digtoonaadaan nasiibooyinkaas oo kala jira wiilashuna ha digtoonaadaan nasiibooyinkaas oo kala jirta marka meesha runtii markaad u fiirsato waa la isku dhiban yahay haddana waa la isku baahan yahay waan baahina meesha way jirtaa oo dadkii ma kala maaramayaan oo waa la isku baahan yahay waxa kale jirta maxaan ku dhahay wax la yiraahdo kulli dadka aqliga leh way og yihiin kala shakiga faraha badan ugu jira marka waxaan leeyahay dad badan waxa jira hadda inta meediyaasha isticmaasho wax kasta way la socdaan oo dunida ku soo kordha ama ka dhaca laakiin dad waxa jira aan waxaas buu u haynin oo ka dhagala oo duni kala toolo iyo mood kale iskaga jira ayaa jira marka dadkaas laftirkoodana kulli sheeko dadkaas kale ku gaari doontaa marka hablahana haddii ay arkaan nin astaanta aan soo sheegay leh oo wuxuu sudee wax aan inaba caadihin uu yahay aad u baawrweyn hadduu yahay ka fogaada ninkaas bahalkiisa caadiga ma ahan waxbuu soo cunay kaasoo kale wuxuu ugu talagalay inuu salka gaarido maxaan kaloo aan kula tartaarmay asxaabtayda qiimiga qadarida mudan barnaamijkeena waa gabagabo waan jeclaa inaan idin sii wado laakiin koronto kuma shaqeynayo biyahaas cad ma ku shaqeynayaa
biyaha cad laftirkooda waa energy model laakiin way iga dhamaatay ma garanaysaa barnaamijkan dee barnaamij lamid ah 2000 iyo hayayba ku jirta barnaamijkan barnaamij lamid ah intaan ku kulmi doono dee waa anigoo iskoor ah waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulanta maxaad leedihiin waan idinka tagayaa haye nabadgelyo asxaabtayda باي باي ورد عافمات برنامجك هايلوين inaad share tiraadaan like tiraadaan si asxaab fara badan ay uga qayb qaadato insha Allah hadahaas oo kaleetona waa inoo balan inaan soo diino barnaamijyo xiise kaliya qof kasta oo doonaya barnaamij in looga hadlo wuu ii soo tiri karayaa anigana bulshada ayaa la wadaagi doona aniga oo aan qofka soo ii soo qoray sheekada aanan magaciisa sheegi doonin qofka laga sameeyayna aanan magaciisa ku weydiin doonin laakiin muhiimadu waxa weeyaan in ay noqoto waxaan idin sheegayso sheeko dhab ah wax jira wax mala awaala ma doonay wax dhab ah on ha noqoto de waxaan iga tagayaa furta caafimaad dad badan waxaan arkay barnaamijka dhibsanaya oo dhahaya waxyaabo kala dhahayo si gabdhaha u badan yihiin de waxaan leeyahay wuxuu waa kaftana ha u bixina cafiyo musaamixaan leeyahay saamixnaakum باي باي